dhammaantiin waa idin salaamay daawadayaal. barnaamijkan maanta waxa uu ku saabsan yahay inaan uga hadli doono taariikhaha badanaa aad aragto waxyaabaha loo adeegsado sida xusidda calaamadaha summadaha taariikhaha BC, AD, BCE iyo CE, waxyaabaha laga soo gaabiyey iyo waxyaabaha ay u taagan yihiin. haddii aad doonayso inaan soo badiyo muuqaaladan oo kale, fadlan like saar channelkan rukumo. haddii aan gudaha u galo barnaamijkeena, waxa uu noqonayaa taariikhahan ama summadahan loogu talagalay in lagu cabiro waqtiyada waxa ay kala yihiin sida tan. Georgian calendarka ayaa had iyo jeer waxaa lagu cadeeyaa in calaamadahan aan soo sheegnay ama BC iyo AD inay yihiin had iyo jeer cabiro loogu talagalay waqtiga in lagu cabirto. taariikhihii guud iyo caalamka in lagu xuso sidoo kale waxay arintani tahay mid khusaysa arrimo diimeed iyo dhaqan, waxaana dadka inta ugu badan isticmaalaan Georgian calendarka ayaa aad looga isticmaalaa, waxaana la ogaaday in ay tahay arrin dhaqan iyo diin ku salaysan, balse muhiimadda annaga aan ka hadlayno waxa ay tahay micnaha ay ku fadhiso iyo waxyaabaha laga soo gaabiyey xarfahan. waa maxay farqiga u dhexeeya AD, CE, BC iyo BCE? isku mid miyaa ma waxaa jiro kuwo gaar loo isticmaalo? kusoo dhawaada daawadayaal. haddii aan ku bilaabo BC iyo AD, aragtida ah in la xisaabiyo sanadaha sideedaba waxay ku tacalluqdaa xilligii dhalashadii Nebi Ciise 525, waxaana lagu sheegay inay Georgian calendarsku sidaan hore usoo sheegay ay isticmaalaan Yurub iyo guud ahaan wadamada Kiristaanka ah ayayna taariikhahan asalkoodii kasoo jeedaan oo ay kusoo faafeen. haddii aan ku bilaabo AD, waxay u taagan tahay erey Laatiini ah oo ah Anno Domini oo laga wado macnihiisa sanadkii Ilaah. sidoo kale BC iyadana waxay u taagan tahay Before Christ oo ah dhalashadii Nebi Ciise ka hor. BCE iyo CE iyagana waxay u kala taagan yihiin Common ama Current Era iyo Before Common Era ama Current Era. iyaduna waa waqtiyada ama cabirada la isticmaalo. sidoo kale 1700 sano ka hor muddo ah ayaa iyadana la isticmaali jiray. waxyaabaha muhiimka ah ee meeshan ku jira waxaa ka mid ah iyaduna inay jirto qaab loo isticmaalo taariikhahan ama summadahan waqtiga loogu talagalay ee aminta. BC waxaa had iyo jeer la dhigaa sanadka markii la xuso qaybtiisa gadaale, tusaale waxaa la leeyahay 1100 BC. sidoo kale AD oo iyadana aan soo sheegnay inay ahayd Anno Domini laga soo gaabiyey, waxaa la dhigaa sanadka qaybtiisa hore oo waa 1066. halkaas markii aan uga soo gudubnay, iyadana dadku waxaa jira dooq ay leeyihiin markii ay qorayaan artikalada iyo taariikhaha. sidoo kale iyaguna waxay dhigtaan meeshii ay doonaan, balse AD iyo CE waxaa loo isticmaalaa sanadihii ama qarniyadii dhowaa ee muddooyinkoodii ugu dambeeyay lasii ogyahay ayaa la isticmaalaa. si aan usoo badiyo muuqaalada noocaan ah, fadlan like saar channelkana rukumo oo ha hilmaamin oo subscribe kulanti dambe.